wuxuu yidhi irdaa gabay islaanow beryahan iguma ognayno aflagaadadiisa nabcahay aana godoobeen aniga iyo iidoorna way sarag nacaynaa ajashaan ka gooyo iyo waxaan ku ijtihaadaya ajar baan ka dayayaa sidii ehelkii reer caad waxaan filayaa soomaali inaad isnacdeen waxaan idin hore lahaa ilaahay isnacinina oo ka daaya fadwada qabyaaladda ka daaya ismaaciil cumar geelle dagaalkaasi badheedhe buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan cid kasta oo warkani gaadhayo dowladaha deriska beesha caalamka in duqayntii ugu xumeeday xalay tullaascaanood ka dhacday taasoo muddo soo socotay ayna ahayd tii ugu faraha badnayd ee xalayto fiidkii la bilaabay taasi waa qodobka kale waxaan rabaa inaan kelmad iraahdo rag fara badan oo hargeysa ka hadlayay qolada gadhxijis waxaan rabaa ee shalaytu hadlaysay ee waxgaradka ah anigoo salaamaya inaan kelmad iraahdo ilmaadeerayaalow anigu markii aan yaraa ee aan garaadsaday annagoo dhallinyaraa geela waxaan ugu hees jiray hartiyo isaaq sidii hoban dabaweyn hartiyo isaaq sidii loo helay loogu hadaliyo looguma heshiin waynu islayn jiray waynuna heshiin jiray tol iyo derisna waana wax badanna waa ina ka dhexeeya laakiinse markaynu islayn jiray waxaynu isku leyn jiray waxaynu garaan oo ah kuraas geel iyo dal iyo damac intaba waa isku leyn jiray maanta waxa aad laascaanood ugu soo duusheen ee ciidamadiinnu ay laascaanood dadka ugu xansuuqayaan ma garanno dagaalka qolada habar awal oo hogaaminaysa waxa ay ku dagaalamayaan waanu garanna waqtigii mudaxileedkii kursiga ay hayeen baa dhammaaday waxay siyaasaddii ka gashay in laascaanood dadkeeda la duqeeyo oo la xanaaqo iyagu waxaynu ku dagaalamayaan waanu garanna laakiinse qolada gadhxijis waxaanu isniri marka ay qolada hawar awalistiri ku muddo kororsada xansuuqa iyo garaacista laascaanood isaaqna ku kiciya mucaaradkana iskaga jebiya habboonidiinni inaad gara weydeen baan filayaa nin la oran jiray maaweel baa nin barhayare la yidhahdo in adeerkiisa sacuudiga uga tago markaasuu wuxuu damcay inuu boqor ka dhigo dabeedna maalintii dambe isagoo tijaabinaya wuxuu yidhi maxaan kuu qabtay markaasuu ishaar iyo surgaal qurux badan iibi maaweel wuu gabiye wuxuu yidhi ha cubtam wuxuu caan buu ahaa aabbaha caaqilkii bari cimaamad buu qaadan jiray maalin la iscunay ha cubtaba adduun baan lahaa caawin iyo laano waxaan kugu caqiibayn lahaa caynabow farase markaad cugatay shaar iyo surwaal sida carruurtooda candhuufadii dib baan kaaga laqay kaana cawsaday qolada gadhxijis waxaan leeyahay shalayto hadlaysay waxaanu islahayn markii qolada habar awal ay istiri ku muddo kororsada in laascaanood la duqeeyo oo la xansuuqo bahasha way fahmayaano tarahooday ilaashanayaano waxay oranayaan haddii baydankeeda leeyahay war dagaalkana hala joojiyo oo ka daaya magaalada xansuuqa siistamkana mudaxileedkiisii waa dhammaaday doorashaha la qabto oo hargeysa doorashaha laga qabto annaga doorasho naga suuroobi mayso waxawayna kama dhexeeyaan oo door dhexdhexaad ah bay qaadan lahaayeenoo maanta haddii baydankeeda leeyahay tarahooday ilaashan lahaayeen haddii aad gooja cadde iyo odagoye iyo madaafiicda nagaraacase aad shiishirida iyo cabeeye aad ka wada noqotaan waa nasiibkiin gadhxijis intaasaan leeyahay halkaa idiin dhaafi maayo culimadii hadlaysay waxaan leeyahay waxaan filayaa soomaali inaad isnacdeen waxaan idin hore lahaa ilaahay isnacinina oo ka daaya fadwada qabyaaladda ka daaya taana intaasaan leeyahay dowladaha deriska iyo beesha caalamka iyo dadka xabad joojinta leh xabad joojin ha la sameeyana waxaan leeyahay 1922 ayaa ciidan ingiriis iyo isaaq iyo xabashi iswataaniman ogaadeen oo awaara degan ku duuleen dagaal fara badan baa dhacay oo nimankii ogaadeen way isdifaaceen iyagoo lagu soo duulo lagu gardaran yahay ogaadeenkii la yidhi xabadda joojiyo arrintii bay aad uga yaabeen deedna nin ogaadeena gabay ku jawaabay su'aashii ku filan wuxuu yidhi irdaa gabay islaanow beryahan iguma ognayno aflagaadadiisa nabcahay aana godoobeen aniga iyo iidoorna way sarag nacaynaa ajashaan ka gooyo iyo waxaan ku ijtihaadaya ajar baan ka dayayaa sidii ehelkii reer caad raggale xabadda ha la joojiyo war annagu xabad ma wadno ilmaadeerayaal annaga iyo ciidankaasi waa is arag nacaynaa waxay laayeen maatadayadii gabdhahayagii culimadayadii aqoon-yahankayagii cuqaashayadii waxaa la dumiyey magaaladii
xabadii baan ugu socotaa annaga ciidankaasi waanu kala dhimanay waanuna is aragnacayna suurtagal ma aha gooja cadeeyagoo jooga ama adhi cadeeye jooga ama canjiid jooga ama tuula samakaab jooga ama yagoori jooga ama guumeys jooga inay suurtagal noqoto inay xabaddu istaagto waayo intaaba waxaa degan dadkii ay xansuuqeen waxaan rabnaa ciidanka in oog la geeyo marka oog la geeyo ciddii qabanaysa reerka iyo dadka waqooyi ka soo duulay diyaar baanu anagu duulimaadna maahin nabadna waanu doonaynaa taana intaasaan leeyahay waxaan rabaa inaan kaloo caddeeyo ismaaciil cumar geelle dagaalkaasi badheedha buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo hubkiisii iyo raggiisii iyo kaartadiisii iyo diyaaradihiisii basaasiinta wax basaasayey iyo khadkii telefoonada wax ugu fududaynayo intaba dagaal buu kaga jiraa ismaaciil cumar geelle arrinta annaga iyo ciidankaana dhex marasa iyo siyaasaddaas hargeysa dhexdhexaad kama noqon karo intaasaan ummadda u sheegaya wabillahi tawfiiq dadka faraha badan ee reer waqooyiga ah ee dhaqan leh ee siyaasiyiin leh ee culimo leh ee aragtidooda iyaguna cabiray ee aan ahayn dadka qabyaaladda iyo caadifadda iyo sida kooban u fikiraya lambar 1 boqor cismaan buurmadow aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa xildhibaan axmed khaliif oo isna sida xaqiiqda u hadlay oo waxa jira ka hadlay oo maanta qofku waxa loo baahan yahay inuusan qof beena noqon wuxuu yahay hadii ay cadaato oo hadii ay cakiranto arrin ay caqdiga wada codkar kale u baahan tahay oo calool adag waxa maanta isaaqna ku filan annagana nagu filan ninka ilaahay ka baqaya ee raganimada leh ee fikirka caadiga abaari kara ee ku dhiiran kara laakiinse odayaal in la soo ururiyo aan maanta oran karayn systemka wardadka ka daaya garaacista iyo xansuuqa ka daaya waana wax suurtagal ma noqonayso shirkadeeye oo isna kelmadda xaqa ka hadlay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo cid kasta oo ama aamusan oo cabsoonaysa ama hadashay oo fikirka xansuuqa ay wadaan systemkan hargeysa ka yimi ka soo horjeedana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa